xuqaasha iyo madax dhaqameedka degmada Garadaga iyo maamulka gobolka Sanaag ku wareejiyay gacan ku dhigla dhawaan dil ka geystay deegaanka Gumburxangeeyo oo ka tirsan gobolka Saraar. Gacan ku dhiglaha ayaa waxa lagu soo qabtay buuraleyda Ceelcadde ee waqooyiga gobolka Sanaag, la markaana waxa maanta si rasmi ah loogu wareejiyay maamulka gobolka Sanaag. waxaana hadaladoodii kamid ahaa aabihii oo maydkiinkiisa oo yaala reerkii ninka wax dilay ka tagay xoolihii iyo damaantadu isagu xiriyo hayaan u tagnay soo gacanta ku haya aadan u tacseen waxay inaad irtisaaka Allah khayr balantan ku balanay wanaga fulinay maxaan ku raahday dadka Allah waxaan leeyahay wareed la sheegay rakana u sheegaynaa waan suradaan reerka lagu aabaan gaarnay anagu gacan kulina aan qabsamaan ku gaarnay meel jooga dawladda soo qabanay soo qabano waxaana taasay dhibtii baanu taabtay gacan ku dhiglaha iminka bishan bilowgeeda bishan January 10 ka wareeya kun halad baan bixinaa maga dad baan ka soo ururay dhiban caayda aan waxba haysanin ninba ninkii wax ku dilay oo cararaya dabadna waxa la cuqaashada soo qabtaa iyo qoyskii iyo ninkii wiilka geeriyooday dhalay waxaan leeyahay awilsan ilaahay hasiyo samiriyana Allah hasiyo dhamaana beelahan iyo gobolka Sanaar bara saabkii baa yimid taliye qaybeedkii baa yimid waayeelkii wax garadkii aanu halka kula kulanayna rag wanaagsan bay ahaayeen ilaahay wanaajiyay waanu arrinkaas si fiican bay meyd bay laba casho dul joogeen annagayna sugayeen markii aanu nidhi aasta waa aasanayna baa sidii baanu ku soo raacda galay bushaarada kalena sida ay bara saabka iyo taliye qaybeedku u sheegay ilaahay dawaan ugu guuleeyay ninkii waa soo qabanay sida ugu haboon ee tolkaye ku qanacsan yihiin baanu ka maraynaa soo qabashadii gacan ku dhiglihii wax ku dilay tuulada Gumburxangeeyo iyagoo halka ugu tagay goobtii wax ka dhaceen ku gaaray ninkii halka ku geeriyooday u tacsiideeyay yidhi annaga nolo aaso dhaqaaqii labaadna ay ku guuleysteen sida loo soo qaban lahaa gacan ku dhiglaha oo ay gacanta u soo galiyeen ciidanka booliiska. waxaan leenahay cuqaasha hambalyo mas'uuliyadeedii saarnayd iyo mid dheeraad ah leedima waa ku darteen aad baan ugu maamul gobol ahaan iyo nabadgeliye ahaanba taliye qayb ahaan idinka mahad celinaynaa. gacan eedaysanaha ama dambiilaha dambiga geystayna wuxuu ku jiraa xabsiga Garadag. odayaasha annaga kala wareegnay waan uga mahad celinaynaa markooda iyo mar labaadba. waxaan bulshada kalena ugu baaqayaa deegaanka gobolka Sanaag ku nool iyo Soomaalilandba waa inay ku daydaan oo soo qabtaan cid kasta oo fal dambiyeed geysata. amniga ayaa mustaqbalka ummadana wuxuu ku jiraa nabadgelyaduna waxay ku jirtaa dambiilaha in la qabto aan la gacan siinin. aad baan cuqaasha uga mahad celinaynaa caaqil jiif caaqil xeero jiif caaqil xirsi diiriye guuleed caaqil Daawud saaxiibkay jaamac oo isna caaqil iminka ah ilaahay barakeeye Saciid Waraabe oo saaxiibkay caaqil iminka ah caaqil Faarax dhamaan cuqaashaas waa rag aan isjecelnay ah oo intaan gobolkan ka shaqeynaya ama degmadan ka shaqeynaya rag gudub taagan kamid ahaa. mar labaad waxaan ugu hambalyeeynaa tallaabada geesinimada leh ee ay ku soo qabteen gacan ku dhiglihii daraad wax ka geystay Gumburxangeeyo waa sifo lagu yaqaanay reer Garadag iyo cuqaashooda waa tallaabo ay ku amaanan yihiin wax walbaana waxay ama ku hagaagaan ama ka xumaadaan waa tallaabada koowaad ee la qaado. tallaabadii koowaad waa ku guuleysateen waan idinku hambalyeeynaa waan idinku mahadnaqaynaa. culays weyn baa naga furateen oo ay ahayd annagu inaanu amni ahaan ka shaqeyno. ilaahay ha idinka jazaaysiiyo. dhinacii dhibanaha ahna waxaanu halkan uga sheegaynaa in arrintaasi booliisku gacanta ku hayo inay sidaa ku samraan oo waxa weeye ma dhinta waa alle ilaahay ha u naxariisto marxuumka dhintay wiil da'yar buu ahaa ilaahay ha u naxariisto. qoyskii maxaan ku raahdaa qaraabadana samir iyo iimaan baan u diraynaa dhammaantayo. cuqaasha halkan joogtana iyagoo isku duuban oo jiifka hogaaminayo dhammaantood waxaan idin leenahay ilaahay miisaanka xasanaadka arrinta ha idin saaro. Farax Burburte Honkebel TV wararka gobolka Sanaag.